waxaan aad ugu faraxsanahay inaan shirkaddan ku soo biirtay oo shortlisting aad ka soo gudubtay waana aragnay CV-gaagii waa ku qanacnay dadka aan u baahanahay ka mid noqotay waan ku faraxsanahay inaad ku qanacsan tahay xeerka iyo nidaamka shirkadda u yaala kaliya waxaan rabnay inaan kuu sheego sida aad ka dhawaajisay way jirtaa dadka inay ku heshiiyaan marka ugu horeysa 3 bilo ugu horeyso mushaarkii hadda aan kuu sheegnayaan nagula shaqaynaysaa 3 bil kadibna waxaan rajayn doonaa inay hor u kacsamayso shirkadda markaasna aan ku kordhino xuquuqda hadda aan kugula heshiinay wixii percentage ah sida qaanuunka shirkadda uu qabo markaas aan noqoto shaqaaleena rasmiga ah adiga inaan ku qanci doontaa rajaynaya insha Allah. maamule waxaa la dhaafay xilligii 3 bilaa ku badanay in mushaarkii lagu kordhin lahaa ilaa haddana wax jawaab ma hay sababtaasna xafiis ku weyn waa ka warqabtay inaad su'aashan oo kale ii imaanayso oo umaleynayay wali anaga xaaladdan ismaysan bedelin sidii taagan tahay waqtigan oo kale lacag weydiisan maahayn adiga xataa inay weydiinayso markaa filayn intan wax walba dhaaga u jeeda adiga waa qof shaqeynaya okay badba maamule ama shaqaale hadday dhacdo inaad isfahmi weysaan ballamihii ama expectationka uu ninba ninka kala kalahaa ay suuroobi weyso waxaad la xiriirtaan hay-adaha ama shirkadaha ku shaqada leh ee bixiya talooyinka si shaqadii iyo shaqo abuurkii aad bixisana ay u ahaato mid hirgasha adigana shaqaale shaqadaadii ay noqoto mid aad ku secure garayso amni leh shaqo security leh oonan walwal lahayn waxaan idinkula talin lahayn inaad sida ugu dhaqsiyaha badan oo la xiriirtaan hay-adaha tala bixinta waa mahadsantihiin